jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku socota xafiiska xirilaaliyaha guud ee qaranka og wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ujeedo cabasho lid ku ah kow Cabdinuur Maxamed Axmed labo Fahad Yaasiin Xaaji anigoo ah qareen Daahir Maxamuud Cali oo qareen u ah maamulka iyo agaasimka warbaahinta Mustaqbal Media ee xaruntoodu tahay magaalada Muqdisho waxaan xafiiska xerilaalinta ee sharafta mudan halkan uga soo gudbinayaa cabasho lid ku ah mas'uuliyiinta sare ku xusan si waafaqsan qodobada 17aad 20aad 21aad iyo 22aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed asbaabaha cabashada 27 bishii afraad 2021 waxaa ciidamada haramcad ee ka tirsan booliiska dalka ay weerareen xarunta warbaahinta Mustaqbal ee magaalada Muqdisho weerarkaasi waxaa ciidanku uga qaaday warbaahinta Mustaqbal qalab isugu jira kaamirado iyo kumbiyuutarro si taas la mid ah ciidamadu waxa ay geysteen jirdil ay kula kaceen shaqaalihii xarunta ku sugnaa sida Bashiir Maxamuud Yuusuf oo ciidanku gaarsiiyay jug culus oo sababtay inuu shaqayn waayo labo kasokow ciidamadii geysay tacadiyada aan soo tilmaanay haddana maamulka warbaahinta Mustaqbal waxa uu helay cadeymo ku filan oo tilmaamaya in amarka faldambiyeedkaas ay lahaayeen labada mas'uul ee aan ka soo cabanay saddex waxaan gacanta ku haynaa cadeymo muujinaya in mas'uuliyiinta aan ka soo cabanay ay lahaayeen amarka lagu galay xarunta warbaahinta Mustaqbal soona bandhigi doono xilligeeda asbaabaha sare ku xusan awgeed waxaan xafiiska xerilaalinta ee cabashadan sida tooska ugu socoto ka codsanaynaa kow in uu baaritaan dhaba ku sameeyo cabashadeena labo in uu si dhaba uga gungaaro dhacdadii ka dhacday xarunta warbaahinta Mustaqbal saddex in uu gunaanadka u gudbiyo maxkamadda awoodda u leh si tallaabo sharciya looga qaado cidda aan ka soo cabanay fiiro gaara sarreynta sharciga ayaa lagu dhisi karaa qaran burburay mana jirto cid sharciga ka sarreysa qareen Daahir Maxamed Cali